waxaatihiin dhallinyaronimadiinnaas waxaa la rabaa inaad naftiinna maanta marsiidaan bidaaya muxriqa. waxaa la yidhaha man lam yakun lahu bidaaya muxriqa lam yakun lahu nihaaya mushriqa. ruuxaan bidaayo gubta soo marin nihaayo ifta ma gaaraa la yidhaah. imtixaankan aad arkayso oo habeenkii aad u soo jeedaan oo aad isku warsanaysaan taleefannada oo aad buugagta soo rogaysaan oo u soo jeedaan oo hurdadii uga tegaysaan waa waxyaabaha kulul oo la rabo inaad ku gaarto wax wanaagsana ifaya. ruuxaan marka bidaayo gubta soo marin yool ifa ma gaadho. waa inaad u dulqaadataan bidaayada muxriqada ah oo idin gubaysa si aad u gaartaan yool ifahaya si aad u gaartaan. dadka wax soo bartay waxaa laga qaataa taariikh baa laga qaataa. waxaa la weydiiyaa kayfiyadii oo wax u soo bartay ee dhibkuu soo maray ayaa la weydiiyaa. qofka aad aragto wax baranaya waxbuu higsanayaa dunyan wa ukhran, adduunyo iyo aakhiraba waxbuu higsanayaa. ujeeddo ayuu leeyahay, waayo waxaa la yidhaha yasca labiibu bimaa yanfac. caaqilku wuxuu u ordaa waxa anfacaya. qofkan marka uu wax baranahayo waa cilmi waxuu baranayaa sow maahan. niyadiisu hadday suubanaato cilmigaas waa ku korayaa. wax alla wixii ou siiyaana waa ku korayaa. haddii laakiin niyadiisu xumaato asaguna ku kori maa, qofuu gaarsiiyaana ku kori maa. waxa lagu kala hormaray waa niyada. waxaa tacallumka aad wax baranayso, tacallum iyo tacliim, waxbarashada aad baranayso iyo baristaa dadka barayso labadaba haddii niyadaadu hagaagsanaato oo aad ula jeeddo waxaan aad baraysa ilaahay inaad ugu dhowaato, qofka aad baraysaana ilaahay uu ugu dhowaado, waa kelimada kaa soo baxdaa waxay noqonaysaa kelima naafica bay noqonaysaa. waxaan marka aada idinkugu boorinayaa waxbarashadiinnu inay ahaato mid ikhlaas leh ee adduunyo kaliya aadnaan isdhihinin aad ku gaartaan. laysma yidhaahdo tacliimta iskuulaadka iyo jaamicaadka iyo waxyaabahaas. waxaa la yidhaahdaa caalamkiibaa wuxuu noqday caalamulkartoon uu noqdo haddeer, caalamulxisiyaad buu noqday. waagii hore waxaa jiri jira wuxuu ahaa caalamku caalamulmacnawiyaad. aqoonta qofka ayaa laga qaadi jiray isla markaasee waxay u ahayd shahaaday u ahayd. ilaahay khayr ha idin siiyo. annaku mar walbaba inaan idiin khidmayno diyaaran u nahay. maamulku diyaar uu yahay inuu idinka gacan siiyo wixii ixtiyaajaadkiinna ah intii tabartiisa ah. waa soo dhowaynaynaa ardada soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad uga xunnahay kuwa al-shabaab ou go'doomiyey oo maanta soo gaari waayey oo degmooyin badanaa soo gaarin halkan oo imaan lahaa oo aan makansan. kuwaa la makansan waayey daadad ku furtay la makansan waayey. aad iyo aad ayakana waxaan u rajaynaynaa soo kabasho wanaagsan aan u rajaynaynaa. waxaan aad iyo aad idinkugu boorinahayaa waxbarashada inaan meeshaas looga tegin. kulaylkii yaraayo imtixaanaadka iyo waa laga soo kabtaa. haddiiba dhowr maalmood markii xooga aad seexataan waxaad is leedahay alla ilaah waa ku macaansanaysaa, waxbarashada waa ku macaansanaysaa, lada gaaro bay leedahay. rijaala wa nisaa, rag iyo gabdhaba waa idiin hambalyaynayaa. intaad hadda dugsi sare soo gaarayseen in badanaa dhex ku hartay, in badan doontaan ansaaradii dad badanaa ka daatay. markii jaamacado aad u sii socotaan dad badanaa haraya oo daadanaya. inaadna ka mid noqo kuwa daadanaya kulligiin aad wada socotaan, taasna waa idinku boorinaya. inaad ka faa'iidaysataan una faa'iidaydaan dadkiinna iyo diintiinna iyo deegaankiinnana waa idiin dardaarmaya. waxaan aad iyo aad idinkugu sii boorinayaa baari ahaanshaha waalidka, ama waalidkii ruuxda ha noqdo ama midka jasadka ha noqdo, si awlaadiinna dambe baari idinkugu noqoto. taasna waa idiin dardaarmaya. waxaan idiin dardaarmayaa inaad isu khidmaysaan
oo kiina tabarta daran aad taageertaan oo soo qaataan taasna waa idin dardaarmaya markaa isku tiirsanaana cadowgeennu nama soo daakhili karo ma noo imaan karo ka faa'iidaysta marka fursadda dahabiga dhallinyaranimadaani idin daa'imin mayso dhallinyaranimadaani idin daa'imin mayso waa ay tegaysaa marka intaysa teginin waxbarta daacaysta ilaahay u dhowaada adigoo ilaahay u dhowo daacadiisii ugu dhowaaday adduunyadan ka xamaamadaada ka qaado marka ilaahay cabsidiisaan isu dardaarmaynaa jazaakum allahu khayra aljazaa axsantum baan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinku bogaajinahayaa idiinna rajaynayaa imtixaanka aad gasheen inaad noqotaan faa'iqiin fi darajaadkii kuwii ku sarreeya waxaan idin rajaynayaa darajaadkoodu kuwii sarreeya inuu noqdaan idin rajaynayaa maa minkum waaxid raasid axad dhacay idinkumaba jira adinka